صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بالكستو أجوكتان رمضان كريم ومضى صوماليين بالبركة يسنبه القدرة إلهي صونك صلاة عبادة إن شاء الله إلهي هنقع برو سبيك دعينا الله نعلى المريم انت سنتو عوايه فرنتي ضمانتي waxay daarantahay walaalayaal waxaan ognahay inuu xanuunkan saameeyay dunida oo dhan siiba dhaqaalihi wadankeenu uu yahay wadamada ugu nugul ee saameynta dhaqaalaha waxaan bishaan lagu jiro dad badan oo Soomaaliyeed oo muslimiin oo sooman ayaan awoodin afurka walaalayaal waxaan rabaa inaan insha Allah fariintan ku dhiirigeliyo in la afuriyo qof walba hoostiisa iyo hareerihiisa oo eego dadka masaakiinta ee tabarta yar ee awoodin afurka waayo waxaan ognahay sadaqadu bishaan inay tahay bil barakaysan sadaqada iyo cibaadada la sii la wajibaaro ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo insha Allah waxa la yiri qof walba taagtiis baa qodaxda ugu tagtaa walaalayaal waxaad awoodid inaad walaalka aad ku caawisid wixii aad awoodin hadda ma awoodin sadaqadu faa'iidada leedahayna waxaan rabaa insha Allah ina laba qiso yar oo kooban aan idin wadaago sadaqadu maalkay barakaysaa xoolaha xifdida nafta xifdida hadda kor waxa dhacday masaajid ayaa oday muadinka ahaa markastoo aad wuxuu dhigi jiray sadaqadu maalkay barakaysaa sadaqadu maalkay barakaysaa waxa dhacday marka in oday dukaan masaajidka u dhow haystay oo muddo biirinayay oo dukaankii u kori waayay maanta wuxuu yiri odaygan wuxuu sheegayo ma tishaabisi dadna waxa dhacday in odaygii uu dukaankii yarka ahaa gabigiisa uu sadaqaystay ilaa dadkii u sadaqaystay muddo kadib odaygii waa xanuunsaday daba dhiig baa ku dhacay shaqo helay ganacsi uu bilaabay ilaahay baa xoolihiisa u barakeeyay taajir buu noqday sanawaad kadib masaajidkii ku soo tukaday odaygii baa wali sidii ku hayay sadaqada maalkay barakaysaa sadaqada maalkay barakaysaa dadna markii salaad laga baxay mikrofoonka qabsaday wuxuu yiri sadaqadu odaygaas uu sheegay maalkay barakaysaa runtiisu weeye laakiin wax yar oo daba dhiiga ka horeeya hala adkaysto marka walaal sadaqadu maalkay barakaysaa mid kale waxay ku leedahay hadda koor waxa dhacday waqtigii Ciraaq ay ku soo duushay Kuwait ayaa reer Kuwaidiin oo soo qaxay wax u yimaadeen in Ciraaqiyaan marka waday laba wado kala xatay garan waayay tii saxda ahayd ninkii waxa ku dhahay wadadii askariga Ciraaqiyeenka wadada saxan wixii waadii sheegay cunto yar siiya marka yarkii dhalinyarada gaariga waday baa diiday wixii nimanka waddanka ay ku soo duulay xasiin mayna hooyo islaan hooyihiisu afadhiyo buuleeyay maamada marka waxay tiri ilaa warikaasiin adu cunugii waa xogaa buu diiday markay dhaaqeen oo kaska dhinkii ka dhaaqay wadadii u tilmaamay ay raaceen maamadii steering ku dhagtay deedna way soo noqotay waxay leeyihiin ilaa ninkan ka tiimayno xogaa cunto bay siiyeen kaas wuxuu yiri wadadii hore ay tilmaamay miiro baahayd inaad ku halaasantaan ma ugu talagalay tanaa saxan tan qaada marka taasna waxay ku tusisaa walaalahay in sadaqadu naf iyo maalba ay u roon tahay walaalaha Soomaaliyeed hala furiyo insha Allah waxaan rabaa fariintii kale aan u diro walaalaha Soomaaliyeed ee dhibtu gaadhay ee fatahaadu saameysay ee kala joogay baar dheere qarno iyo burco in ayaga loo gurmado la isku gurmado insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.